sida u timid xukuumaddan hadda talada haysa ee uu hogaamiyay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxa gabi ahaanba istaagay wada hadalkii u dhaxeeyay Soomaaliland iyo Soomaaliya maxaa u sababay isleedahay inuu wada hadalkaas istaago maba jirtaba de Soomaaliland ay dawlad siday nimankan talada u yimaadeen aqli darro yar waxay qabaan dalka gacanta ku wada dhiga haddaada ku dhigi karin awood yartahay dawladda leedahay isticmaala oo isticmaala dadkan Soomaaliland wax loo rabtay male anu dadkii ugu horeeyay ka qeyliyaan mucaawanada laga joojiyay oo la soo marsiiyay halkan oo qaab ka duwan mucaawanada loo sii jiray fidna dhexdeeda inta la abaabulay laga soo kiciyay oo dad dawladka si tageen deegaanaas ay fidna ka soo kiciyeen waa labo wax kasta oo Soomaaliland ay ku fogaa karto inay dhisato ganacsigeeda iyo maalgelinta Soomaaliland in la hormariyo oo dhan ayaa laga hor istaagay waxa ugu dambeeyay hadeertaan qof human rights abuse loo haysto oo inuu ku xadgudbay dad muwaadiniin deegaankaas ka soo jeeda oo ku xadgudbay maxkamada Mareykanka ka dacweeyeen yaa madaxweynaha isla sawiray oo soo garab istaagay oo xataa xafladii la maamulay waxaan la yaab waxay tahay anigu sawir baan isaga haystay waxaan hadda arkayba ninkii xafladii wax ka maamulay marka de Soomaaliland maalin kasta waxa dhaawacaya oo la sii fogeynaya oo adeero god lagu sii ridaya wada hadalkii waa dawladana ku sii riday taas kaliya ma war kuwa yaraayo hadda loo dhiibay kala diraysaaba Soomaaliland ka hadlaysa Puntland hadda konfederaal leh Jubbaland hadda meel u carato iyo baxsad ah intii yarada loo dhiibay yeeba kala irdeynaysaaba baydhaba ogtaa wixii ka dhacay oo xasuuq ahaa oo intaas oo qofood ilaa 20 qofood lagu dilay gabar yar oo masaakiin oo maalintii ka qeylay ilaa hadda xabsi ku jirta oo tiri waxa anaga marhabna kaliya dibkan oo hadda uu leeyahay midkii madaxweynaha meesha ka ahaa qof dawladda ka soo jeeda meeshan kuma shiri karto war waxaasoo dhan dawlad ku kacaysa Soomaaliland hadda maba loo fadhiyo war intii yareeyay federaalka gobolada loo dhiibay hadda laga leeyahay wax ay dan kale yihiin nimanka shacabka Soomaaliland u sheegayna nimankaas talada haya haddii xilligooda dhamaado ama oo iska tagayaanba wax allaale waxay eel dhigeen danka ma laha oo dalkan ay si kala fogeeyeen danka ma laha si la isku keeni karo Soomaaliland danka ma laha wixii dadkan ka soo galay oo dib u heshiisiin ah iyo process ah iyo kuwa isdilay iyo kuwa isdilinba oo meesha lagu soo yimidna danka ma laha horena dan uga ma lahayn marka taas ayaan darada jirtaan waa midaas oo ugu weyn meesha waxa taa siyaasi wax badan kala socda xaaladda ka jirta dalka maxaa isleedahay sidee lagu soo noolay karaa wada hadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya sidee ugu habboon ee loola dhaqmi karaa Soomaaliland maadaama ay sheegatay goor isku taag waxa Soomaaliland ay ka cabanayso oo ay tabanayso in laga garaabo koow oo si rasmi ah loo garaabo labo in la dhiso kalsoonida saddex in Soomaaliland waxay ayada qabtana miiska soo saarto dawladda Soomaaliyeed ee federaalka waxay qabtana miiska saarto aan la soo gabanin aniga waxaan aaminsanahay haddii midnimada rabane Hargeysa ay ka bilaabato hadda anaga Muqdisho ama federaalka aan midnimada Soomaaliland iyo Soomaaliya aan rabnane Hargeysa ka bilaabata oo Hargeysa la qanciya Hargeysa haddii rabto inay naga go'do naga baxdane Muqdisho ka bilaabata Muqdisho taala oo inay Muqdisho qanciyaan ayagana oo kaliya iskama tagi karaan si marka la isku qanciyo waa in wax kasta miiska la soo saara la wada hadlaa laba dhisaa kalsoonida labada dhinac ka dhaxaysa la dhisaa oo ficil kasta oo kala irdheynta keeni kara aan lagu kicin